asalaamu calaykum. Maanta waxaan idin tusayaa haddii aad tahay dhakhtar ama injineer ku nool waddankan UK oo ilaa 10 sano khibrada leh haddaan dhahno, waxaa soo gashay average lacagta celcelis ahaan bishii 4,000 oo pound ayaan ka soo qaaday. Way ka badan kartaa wayna ka yaraan kartaa, laakiin celcelis ahaan waddanka oo dhan waa 4,000 oo pound intaan xogta ka soo helay. Marka waxaan idin tusayaa 4,000 oo pound oo soo galaysa family, laba ciyaala ka kooban iyo hooyo aabe. imise kharash ayaa ka bixi karta oo ka baxda. Numberkan dhan waa celcelis ahaan ama average waxa la dhaho. Guriga kiradiisu waa 1,200 oo pound. London oo kale kama hadlayo, London waa qaali. Magaalada tuulooyinka fogfogna kama hadlayo, meel dhexe oo celcelis ahaan waa 1,200. Korontada iyo gaaska oo kale 250 ayaa ku baxda. waxaa jira waxa la dhaho council tax oo la rabo inaad siisid dawladda hoose oo canshuur ahaan ay kaga qaadanayso. ayadana waxay bishii laga rabaa 150 pound. Cuntada kale celcelis ahaan waxaan soo qaatay inay tahay 600 oo pound bishii inay ku bixi karto. Waxaa kaloo jira baabuurka insurance-giisa iyo shidaalkiisa iyo dayactirkiisa iyo waxaas dhan marka la isku soo dardarayna ilaa 3,000 ilaa 300 oo pound ayaa ku bixi karta. waxaa kaloo jirta iyadana ciyaalka kharash dharkoodii iyo activity-goodii banaanka meel ciyaar la geenayo ama tutoring 10 la siinayo kaleeto ilaa 250 pound ayaa ku bixi karta. waxaa kaloo iyadana jirta telefonkii, biilkiisii, internetkii, membership kale oo dad ku jiraan ilaa 150 pound ayaa ka soo qaaday celcelis ahaan. waxaa kaloo oo ayagana ku soo daray ilaa 100 pound oo ah qofku ama family marmar bay rabaan inay banaanka wax ka soo cunaan. marka 100 pound waa number aad u badan ma ahan. banaanka soo cunitaanka iyo shaaha cabitaankiisa iyo laftiga kharash yar ma aha. marka 100 pound baan ka soo qaatay. waxaa kaloo jira deyn oo qofka dhakhtar ama engineer hadduu yahay waddankan England salahan waxbarashada markaa baranaysid jaamacadda dhakhtarka iyo engineerka iyo kuwa kaleba waxaa lagu soo qaataa deyn. haddaad qof taajir ahayn oo familkaaga aysan kaa bixin, laakiin dadka intiisa badan waxay soo qaataan deyn oo lagu leeyahay. deyntaas oo dib ka bixiyaan, deyntaas oo interest ama dulsaar u saaran yahay. sababtaas ayaa keentay dad badan ama faamilo badan in ciyaalkooda jaamacadii kala cararaan ama isageenba ayagoo ka cararaya dulsaarkan inay ribo ku noqoto oo dambi weyn ah. marka lacagtaas jaamacadaha la bixiyo oo dhakhtarka iyo injineerka iyo bixiyaan ilaa waxaan ka soo qaaday 250 qofkiiba. marka hooyadii aabahaba hadday wax soo barteen 250 qofkiiba bixiyo waa 500 oo pound ayaa la iska rabaa bil walba. waxa kale oo soo qaaday hooyadii aabaha labada waxa ku xiran ehelkaas ama waddanka joogeen ama halkan hala joogeen qurbaha la joogeen, laftigoodu kharash iyo taageero rabaan. 250 ayaa qofka celcelis ahaan ka soo qaaday inuu qofkiiba diro. marka labadoo marka isu geysay 500 oo pound inay bishii halka uga baxdo. numberkaas oo number aad u yar, waxaan aaminsanahay inay ka badan tahay inta family supportiga laga rabo. marka waxaas dhan marka isku soo dardaray intaas aan soo sheegay waxay noqotay 4,000 oo pound. lacagtii soo gashayna waxaan idhi 4,000 oo pound. meesha waxa kaaga soo baxaysa oo qofkii wax u soo haraya haba yaraatay aysan jirinin. marka qofku wuxuu u nool yahay ama familku waxay u nool yihiin inay cuntadooda cunaan, ciyaalkooda dugsi geystaan, ay gurigooda kirada ka bixiyaan. intaas u nooshahay noloshu intaa kaliya maahan. marka saa hadda hore u sheegayba 4,000 baa ku soo gashay, 4,000 way ka baxday. intaan oo kale oo hawl ku sugaysa mustaqbal baa ku sugaya. inaad guriga dhistid baa rabtaa, inaad ciyaalka holiday geysid baa rabtaa, inaad xaaj aad baa mana awoodid. marka bal ka fakir nolosha noocaan oo kaleeta oo lagu jiro qurbaha lagu jiro. dadkan aan hadda ka hadlay injineerka iyo dhakhtarka waa dadka professionalka oo lacagta fiican soo gasho. haddaysan professional ahayn oo dadka iska caadi yihiin oo meelaha shaqooyinka caado hoose ka shaqeeyana kaba sii daraba. marka culayska dadka qurbahan ku nool ay ku jiraan waa u jeedaan kuwa waddankiiba iska badaayo income ma soo gala qaarkood inta badan oo waxay ku nool yihiin dadka dibadda lacag looga soo diro. arrintaa waa arrin aad iyo aad xanuun badan oo u dhib badan oo stress badan oo familiyada kala geysa oo ciyaalkii ma geysan karti iskuul fiican. hadda familkan hadda arkaysid 4,000 soo gasho 4,000 ka baxdo, ciyaalkooda markay iskuul gaaraan iskuul private ma geysan karaan. iskuuladan kale iskuula fiican ma waxyaalo fiican laguma dhigo. jaamacadii hadhow iskama bixin karaan ciyaalkooda markay jaamacad gaaraan iskama bixin karaan. haddaa ciyaal badan oo laba ka badan haysta ayay kaba sii badanba qarashkii ka sii badan. familkii kale oo ehelkii ama waddanka joogeen ama halkan kula joogeen oo caawimaad kale oo dheeri u baahan sida dhakhtarnimo kaleeto ama culays kale soo fuulay kaleeto
ma caawin kartid. Marka haddaa u barbar dhigtaan dhakhtar ama injineer 50 sano ka hor tusaale ahaan waddankan UK oo kaleeto qarkii lacagta soo geli jirtay iyo tii ka bixi jirtayba wuxuu awooday dhakhtarkaas ama injineerkaas inuu guri iibsado, inuu ciyaarkiisa xajka iyo asagaba xajka aadaan, inay holiday aadaan, in badan oo adigu aadan haysan hadda ayuu awooday. maxaa keena marka inaad adigu hadda stresskan iyo dhibaatadan iyo walwalkan ku noolaatid 50 sano ka horna ayuu walwalkan uu yaraa ama uu sajirinba. waxa keenaya waxa weeye lacagtii oo dawladda iska daabacday ku takrifashay dagaal ku gashay. marka dagaalada hadda socda hadda sida qas oo kaleeto lacagta lagu galiyo kaleeto waa lacagtaadii. marka waxa keenaysa dawladdii oo lacagtii daabacaysa, dawladdu lacagta soo gasha iyo lacagta ka baxda isma laayka. lacagta ka baxda ayaa badan, kharashaadkeeda ayaa badan, siday doonto ugu takrifashaa. markaas adiga ayay dib kaaga go'an tahay, inflationka ayaa cirka aaday. marka xalka kaliya ii muuqda aniga waxa weeye inay tahay bitcoin oo hadda familkaas 4,000 soo galaysa inay kharashaadka hadda ku baxayo kaleeto intay qaar cunaha isqabtaan oo kaleeto ay wax uun awoodaan dhowr boqol bishiiba ay ku tuurtaan bitcoin oo saving u noqoto sida mustaqbalka uga baxsadaan. midaas waa midda shakhsiyan bitcoin u xalinayso. midda guud ee bitcoin xalinaysana waxa weeye haddii lacagahan dawladuhu poundka iyo US dollarka iyo lacagaha eurada iyo isaan kusii socdaan maanta ka dambaysa qiimahooda wuu sii loos garaynaya, hawadayna kasii baxayaan. waxaa dhici karta inay ama isticmaalkooda yaraado ama meesha ka baxaan intooda badanba. marka inay bitcoin meeshaas buuxiso, booskaa buuxiso oo ay noqoto lacag laisku hadlayn karo oo cidna kaa qaadan karin valuegeedii, oo maalinta ka dambaysa sanad ka dambeeya qiimaheedu uu sii kordhiyo oo sii dhacayn sida hadda lacagaha kale fiyaadka hadda loo yaqaano. lacagooda sanad ka dambaysa wuu sii yaraadaa, laakiin bitcoin sanad ka dambaysa qiimaheedu wuu sii kacaa. marka saasaan rajeynayna haddii ilaahay yiraahdo. bitcoin ha u malaynin inay tahay wax iska dad gooniya ku jiraan, waa wax adiga shakhsiyan ku saameynaya. qof walba oo bini aadan hadda adduunkan ku nool culays dhaqaale ayaa saaran. culayska dhaqaale waxa xalalka muuqda ka mid ah, weliba kuwa ugu fiican ka mid ah waa bitcoin. waxaan marka idinkula talinayaa indho kale ku fiiriya, dhinacan ka fiiriya, waxaa arki doontaan muhiimadda ay bitcoin leedahay. aad ayaa u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.